asalaamu calaykum aqaarta meel waajigtiin oo markale muuqaal cusub ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo wax walba oo ku aadan suuqa kala iibsiga United-ka 52 milyan ayaa uga dulqaadaya Chelsea ciyaaryahan daayiro reer Brazil ah Griezmann miyuu Premier League imaanaya kooxda ayuuna ku biiraya isdhaafsiga labada dhinac ee Milan iyo Liverpool Luis Diaz iyo Rafael Leo Liverpool oo markaan rabta inay ka dulqaado Arsenal Vinicius PSG ayaa dhameystirtay Gabriel Mascardo Real Madrid ayaa dib ula soo wareegaysa Matteo Catourez iyo Barcelona oo markaa gacanta ku dhigtay Victor Roque haatan Spain iyo ku sugan yahay hadii aan muuqaalka ka hesho like garay kanaalkana subscribe noo saar hadii aynu ku bilownana kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa daneynaysa in Rafael Leo ay ka soo qaataan kooxda kubadda cagta AC Milan laacibka xulka Portugiiska ah kooxda Milan oo ciyaara ay rabaan inay keenaan Anfield iyagoo ku bedelanaya laacibka reer Colombia haatan Liverpool katirsan Luis Diaz ayaa rabaan inay AC Milan farta ka saaraan soo qaataan Rafael Leo Jurgen Klopp ayaan ku qanacsanayn bandhiga laacibka Luis Diaz haatan ku sugan Liverpool ninkan ayaa qaab ciyaareedkiisa ku soo bandhigay gigada Anfield xil ciyaareedkan haatan soconaya walow kooxdiisa ay ku jirto qaab ciyaareed cajiib ah AC Milan wiilku ciyaara Rafael Leo oo xil ciyaareedkan AC Milan doodka ku sita xil ciyaareedyada ugu dambeeyana bandhig cajiib sameeyay ayuu rabaa Jurgen Klopp inuu soo qaato AC Milanna si walba u qanciyo si uu uga heli lahayd Rafael Leo waa ciyaaryahan ku fiican booska garabka haatan oo ku ciyaaro ninka Luis Diaz waa nin shabaqa daris la ah goolal caawinaya halka Luis Diaz aan kulamada ugu badan oo Liverpool shabaqa gaarin walow kulamada qaarkood gool la dhaliyo goolana caawiyo laakiinse la mid ma ahan Rafael Leo sidoo u ciyaarayna uma ciyaari karo marka Liverpool macalinkeeda Jurgen Klopp sidaa daraadeed wuxuu rabaaba Rafael Leo inuu ka soo qaado Milan oo na keensado Anfield wax walba ay ku kacayaan hadii Luis Diaz la siinayo in kale taba maadaama Liverpool la leeyahay waxa ka dhaqaaqi kara Mohamed Salah marka wuxuu rabaa nin Liverpool jiidi kara sidoo haatan Mohamed Salah u wadi kara wuxuu u arkaa ninka Rafael Leo dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa 52 milyan kaga dulqaadaysa kooxda kubadda cagta Chelsea laacib la yiraahdo Stefano ayaa u dhashay dalka Brazil kooxda kubadda cagta Chelsea ayayna rabaan inay ka dulqaadaan Stefano William ayaa laacib daayira haatan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Corinthians marka laacibkan ay rabaan Manchester United inay soo qaataan waana laacib fantastic waxayna rabaan Chelsea inay ka dulqaadaan 52 milyan ayaa haatan diyaar u tahay Manchester United inay ka soo bixiyaan laacib Brazil ka ciyaara oo waliba laacibkan bandhigiisa waa cajiib laakiinse lacagta ayaa ah mid waaliya 52 milyan Gabriel Mascardo oo Paris Saint-Germain qaadata xataa lacagaha kama isa soo bixin marka Manchester United ninkaas ay rabaan si falisada inay Chelsea uga dulqaadaanba dhinaca kale Antoine Griezmann iyo arrimaha la xiriira markaan hadii aan eegno kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ayaamaha ku rajoogtay Antoine Griezmann maanta waxa soo baxay warar sheegaya majaladaha Daily Mirror ee qorayeen Antoine Griezmann inuu ku biirayo Arsenal Antoine Griezmann ma raadinayso mana daneynayso haatan inay soo qaataan walow Arsenal la leeyahay ninkan Antoine Griezmann way u baahan yihiin laakiin se gabi ahaanba warkaas waa wax kama jiraan laacibkan hadii uu Premier League imaanayo wuxuu ku biiri karaa kooxda Manchester United oo raadinaysay oo contact rasmi ah la sameysay laakiin se laacibka Atletico de Madrid haatan ka tirsan Antoine Griezmann ayaa diyaar u ahayn inuu u dhaqaaqo meel ka baxsan La Liga ama dalka Spain walow la leeyahay ninkan waqtigiisa mar uu ku soo qaadanayo Realka Premier League laakiin haatan diyaar uma ahan inuu u dhaqaaqo dhanka iyo Ingiriiska laakiin bis January wax walba ilbriqsi ay isku bedeli karaan laacibkan intuu maankiisa bedelo ayuu Arsenal ama Manchester midkood ku beeri karaa dhanka kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa markaan u dhaqaaqaysa laacibka la yiraahdo Vinicius waa daafac ka tirsan kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon laacibkan ayaana koox dhowr isku hayaan Real Madrid ayaa daneynaysa Arsenal ayaa la carboonatay hoos kala heshiisay laakiin Jurgen Klopp wuxuu rabaa markan inuu Arsenal iyo walaa waxa raadinayo dhanba oo ka dulqaado laacibka la yiraahdo Vinicius marka Liverpool Ibrahim Konate iyo Van Dijk haatan waa labada center back ee heestan maadaama uu ka dhaawacan yahay Matip marka Gomezna daafaca dhexe markuu ciyaarayo aan aamin badan lagu qabin marka Konate oo kale ciyaartii Arsenal bandhig cajiib ayuu sameeyay qab ciyaareedkiisa world class player ayuu ahaa marka sidaa daraadeed Jurgen Klopp wali kuma qanacsana daafacyada Liverpool wuxuu rabaa Van Dijk ninoo lama taaneysiyo wuxuu u arkaa ninka la yiraahdo Vinicius marka Liverpool ninka ayaa u dhaqaaqayaan
dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ugu dambeyn waxa u yimid laacibka ay raadinayeen laacibka Brazil uga gadnaa ninka la yiraahdo Victor Roque Barcelona ayuu imaaday haatan Spain ayuu ku sugan yahay gaar ahaan gobolka Catalonia ee magaalada Barcelona laacibkan ay Barcelona muddo raadinayeen oo suuqa kala iibsiga waa uga gadnaa laakiinse waxay ahaayeen niman sugaya maadaama laacibkan oo horyaalka Brazil ka ciyaariyay suuqana uu xirnaa laakiin haatan suuqii waa furan Barcelona laacibkana way heleen marka Victor Roque waa lambarka 9aad ee Barcelona waana ninka ay ku cilbixi doonaan maadaama xil ciyaareedkan kooxda Barcelona ay xoogaa qabqab iskaga jirto bareejooyinkoodu waxay iska badan yihiin Lewandowski goolish laga waayay marka Victor ay walaayada saaranayaan dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid dhaawacyadii daafacyada markay galeen kadib kooxdan suuqa ay galeen markan ishood waxay ku dhacday wiilkoodii hore ee Victor ninka la yiraahdo Coateres ay rabaan inay soo qaataan Real Madridna dib u soo iibsadaan walow Manchester City ee laacibkan rabtay inay iibsato laakiinse Manchester City maadaama ciyaartoy badan daafac ay haysato way ka boos baxayaan oo markan Madrid ayaa kali ku noqonaysa waxay rabaan laacibkooda inay dib u la wareegaan heshiis dhigaya waxa jira laacibkan inay 8 milyan ku qaadanayaan marka kooxda kubadda cagta ee Girona xil ciyaareedkan badhig cajiib ay sameeyaan marka Coateresna Madridiisa inuu dib ugu noqdo ayaa laga yaabaa dhinaca kale Paris Saint-Germain ugu dambeyn way xaqiijiyeen laacibka la yiraahdo Gabriel Mascardo wayna la wareegeen marka Mascardo wuxuu imaanayaa Paris dalka Faransiiska wax walba halka ayuu ku dhameystirayaa Paris Saint-Germain Gabriel Mascardo iyo Lucas Barda laacib la yiraahdo Brazil ay ka soo qaadeen ninkana Mascardo wax lagu garaacay Chelsea ayaa ku dhaweyd wax walba u sameynaysa laakiinse deeqad ay wixii isku wareejiyeen dhanka iyo Paris ayuu u aadaba dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Aston Villa ayaa soo qaadanaysa ninka la yiraahdo Ismavel ayaa haatan u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Leeds xil ciyaareedkan 10 gool oo dhaliyay 5 caawin waa u sameeyay marka macaliyana Emery ayaa raba laacibkan inuu soo qaato kooxdiisana ku soo daro ninkan ayaa booska weerar ka ciyaar wuxuu rabaa Watkins iyo asiga inuu afka hore wada dhalsiiyo oo yiraahdo dab iyo hol ayaa ka kacaya kooxaha Premier League marka Aston Villa ninka ay soo qaadanayaan hadii muuqaalka shan la garay kan ka subscribe noo sar goodbye